dhamma Sheekh Yuusuf Ibraahim taliyaha ururka 145aad guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka Soomaaliyeed. daqiiqadaha warbixintan waxa aan ku soo koobi doonaa taariikhda dahabiga ah ee sarkaalkan da'yar waqtigiisa ugu badnaa ku soo qaatay barashada diinta ilaa uu ugu dambeyn ka mid noqday dhalinyaro qaatay go'aan dalka iyo dadka loogu xoreynayo kooxaha khawaarijta. anaka dhalinyaro anaka maxaan ku rabaalkii bulshadii xoogeeda anaka laga raaco marka aan bulshada qabo. Sheekha waxa uu halganka jihaadka xaq u dirirka soo bilaabay sanadkii 2011 xilligaas oo khawaarijtu ahaayeen kuwa awood ahaan dhisan isagoo ku biiray ciidamada ahlu sunna wal jamaaca oo si dardar leh u waday howlgallada la dagaalanka khawaarijta. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. فقال حبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. sanadkii 2018 ilaa 2020 ayuu ka mid noqday hoggaanka xiriirka wacyigelinta ee xafiiska ciidanka xoogga isaga iyo dhalinyaro kale waxa ayna si joogto ah u soo bandhigi jireen fariimo diini ah oo badankood ku saabsanaa axaadiista rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee laga wariyay kooxaha shareeca la dirirka ee khawaarijta. antii qoriga ku gadaan oo rasaasi ku gadaan oo tuuti ku gadaan oo kabihi ku gadaan koofiyadi ku gadaan ba waxay kugu siinayaan mashaaraad waxay bixinayaan daawadaada dadka saas marka kaama mudno inaad ula dhaqantid waxaan ku raacay adeeg iyo waxaan ku raacay inaad qori ugu agjulaysid kaama mudno inaan hayinan layinan u ahatid baa laga doonayaa dadka muuminiinta aad u naxariisatid inaad waxaan ku raabaalkii gabadha ariga la joogto baadiyaha joogto kaligeed marayso meel marayso haddii adiga ku aragto waxaa la rabaa inay farxad kala badbadato markii aragto caalanka garabkaada ku xiran walaalkeed oo ayada dhiigiisa u bixiyay inuu meesha maray inay ogaataan la doonaya fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalbi lam fadu min hawlika bi ilahi subhanahu wa ta'ala rahmad ilaahi xaqiisa ka ahaatay oo baad ugu jiracsantaad ugu nushaay nabi maxamedow haddii aad ahaan lahayd nin qalbi adag mid qalbi adag haddaad ahaan lahayd way ka kala carar lahaayeen buu leeyahay ilaahi subhanahu wa ta'ala dadka muuminiinta way ka kala carar lahaayeen. taliska ciidanka xoogga ayaa u xulay Sheekha iyo saraakiil kale inay hogaamiyaan howlgallada ka socda Shabeellaha Hoose waxaana lagu wareejiyay degmada Awdhegle halkaas oo lagu xasuusto taariikhdii uu ka dhigay iyo sida uu dhabarka ugu jabiyay khawaarijta. hogaamintiisa ayaa suurto gelisay in qasaare xoogan dhabarka loo saro kooxaha khawaarijta. mar kale ayaa loo wareejiyay janaale Shabeellaha Hoose waxaana loo magacaabay taliyaha ururka 145aad guutada 14 Oktoobar. mar aan waraysi kula yeeshay deegaanka ayuu soo bandhigay talooyin muhiim u ah dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed kaas oo loogu adkaan karo haddii si dhab ah loo fuliyo kooxaha khawaarijta. fikrada lagu dirir kara waxay sheegayaan magaca diimada sheegayaan magaca diimada hadii sheegayaan in bulshada iyo dawladda ay si kaashadaan inay been sheegayaan waayo waxaan ku rabaalkii fikrad ahaan lawla lima la kana ximara faqihan bariire qofka waxaan ay diinta ka dhigayaan meeshay ka keenan iyo xaalada oo si tahay iyo meeshay ororeen ummadda hadii loo sheego ummadana way ka haraysaa haddaba boqolkiiba 90 ummadda Soomaaliyeed way ka hartay heer waxay gaartay hadda waxaan ku rabaa dawladda dariska ay maleeshiyaad ka soo qortaan oo waxaan ku rabaalkii ku soo kireystaan saad ogtahay qofkii hadda ka yimaado Ethiopia dariskana ka yimaado Kenya ka yimaado Miraas ka yimaado waxay siiyaan bishii $20 ay siiyaan waa kan mishaar ahaan u siiyaan kan Soomaaliya waxay siiyaan $30 ay siiyaan waxaan ku rabaalkii waliba kan xaas kale kii aan xaas ahayn waxa uma siiyaan waayo kuwa maalka iska soo dhiibo waxaan ku rabaa qabanaa nooga warramayo oo xogtoodan waxaan ku rabaalkii siinaya marka waxaa lagu dagaalami karaa in fikirka awood la saaro oo dadka inay been sheegayaan la tuso waayo xaqa oo la qariyaa waxaan ku dhibaatada hadda waxaan ku rabaa hadii culimadana markii nimankan waxay nagu soo bilaabeen 90 iyo labadii nagu soo bilaabeen xilligaas culimada joogtay intay hub wada qaataan nimanka maanta Soomaaliya ka qabtaan ama 5 iyo 6 kun qof ma dhameyn markaas qoorta laga wada jaro maalkaas ay ku ekaanayeen fikirkan Soomaaliya 62 yimid qofka keenaa la og yahay meeshu ka soo degaa la og yahay marka wax markaas qabasho lahayn laakiin xigmad rabbaani weeye oo ilaahay subhanahu wa ta'ala anagu nagu imtixaamay saan ula tacaamulna anaga hadda joogno soma saan anaga ula tacaamulna ilaahay subhanahu wa ta'ala nusay dan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum wasabirin wa nablu akhbarakum wa an imtixaamina ilaahay subhanahu wa ta'ala imtixaanka asiga marka anaga dhalinyara anaga waxaan ku rabaalkii bulshadii xoogeeda anaka laga raaco marka aan bulshada ka qaban